Cross out the incorrect word in each question. Cross out the incorrect word in each question. Su'aalahan waxaad ka saartaa ay leeyihiin halka eray oo qaldan. Tusaale ahaan, when are you going on vacation? What are you going on vacation? Ma dhihi karno sababtoo ah when waxaa laga wadaa goormee ayaad aadaysaa fasax amba dalxiis. Vacation waxaa laga wadaa dalxiis. Su-aashana koowaad, where are the cups? Marka meeshan waxaa qaldan how waa ka saareynaa sababtoo ah how waxaa la weydiiyaa qofka see tahay markaa weydiinayso oo kale how are you doing. Hadda marka su-aasha meesha taalo waxaa waaye where are the cups? Aaway koobka. Number 2, who is the photocopier code? Ma dhihi karno taas qalad waaye. Who qof ayaa lagu tilmaamaa so waa ka saareynaa taas. What is the photocopier code? What is the photocopier code ayaa saxan. Haddaa af Soomaali ku fasiro waxaa la weydiiyaa waa maxay photocopier. Waxaa laga wadaa mashiinka oo warqadaha copieska lagu sameeyo lagu soo cadeeyo. Codekiisa ayaa la isweydiiyaa codeka oo ku xiran yahay ama password. Number 3, why do I turn off the screen? Why waa qalad because markaan waxay weydiinaysaa instruction tilmaamo. How do I turn off the screen? How do I turn off the screen? Qaabkee u damiyaa screenka. Screen waxaa badanaa la dhahaa TV-ga. Number 4, why is this drawer always locked? Why way saxan tahay. Who marka waa qalad. Who ma dhihi karno. Why is this drawer always locked? Drawer waxaa la dhahaa armaajada. Sababtee armaajadan mar walba u xiran tahay. Number 5, where does the cafeteria open? Where waa qalad sababtoo ah where meel ayaa lagu tilmaamaa. When does the cafeteria open ayaa saxan. Su-aashan hadda af Soomaali ku fasiro waxa waaye goormee la furaa. Cafeteria waxaa la meel oo shaah lagu gato la fadhiisan karo maqaayad camal oo laakiin si badanaa shaah lagu cabo. Marka waxaa la isweydiiyaa waa when goormee maqaayada la furaa open. Number 6, why do I ask for printer ink? Why waa qalad. Waxaa saxan who do I ask for printer ink? Yaan weydiiyaa qadka mashiinka oo waxa lagu soo print gareeyo ama lagu soo cadeeyo. Qadka la sheegay marka ma ahan qadka oo internetka laakiinse waa qadka tusaale ahaan qadka qalinka ku jiro ama mashiinka waxa lagu cadeynayo qadka asi ku jiro. Number 7, what do you discuss at meetings? What way saxan tahay. When ma dhihi karno. What do you discuss at meetings? Markii shirka la qabo maxaad ka hadashaan waaye su-aashan. Fill in the gaps using do or does. Su-aashan waxay leedahay buuxi meelaha bannaan waxaa ku qoraysaa do ama does. Do they come in early? Do they come in early? Ayaka subaxi dhaqsi ma imaadaan. Does he have a key for this drawer? Qaybtan waxaa qoraynaa
does. Does he have a key for this drawer? Furo ma leeyahay oo ku furo armaajadan amba jijiidka. Number 2. Does your laptop have a DVD drive? Does your laptop have a DVD drive? Laptopkaaga ma leeyahay meel oo DVD-ga la geli karo? Number 3. Does Jim and Tom have new screens? Does Jim and Tom have new screens? Tom iyo Jim ma leeyihiin screen cusub? Screen waxaa la dhihi karaa TV-ga, laptopka, computerka. Okay, number 4. Do you keep pens in your desk drawers? Do you keep pens in your desk drawers? Qalimaanta ma gashataa desk drawers? Jijiidka ma gashataa qalimaantaada? Number 5. Does Sarah write the minutes? Does Sarah write the minutes? Sarah ma qortaa daqiiqadaha? Number 6. Do all employees have wall calendars? Do all employees have wall calendars? Calendar waxaa laga wadaa sanadka waxay ka kooban tahay 12 bilooyin. Calendarka marka waxaa ku qoran 12 bilooyin. Haddii lagu qoro together waxaa dadka u bixiyaan calendar. Businessman ganacsade. Businesswoman ganacsate. Sales manager dadka waxa gado dadka mas'uul ah. Sales assistant dadka waxa gado managerkooda. Sales assistant dadka waxa gado dadka caawiyo. Receptionist dadka xafiiska fadhiyo. Albaabaha badana waxaa laga helaa marka aad meel tagto xafiiska irida hore dadka fadhiyo waxaa la yiraa receptionist. Hairdresser ama stylist labadaba waa mid. Hairdresser waa qofka timaha qaabilsan. Gardener beeraley. Cleaner iyo janitor waa mid qofka hagaajiyo. Train driver ninka tareenka wado. Taxi driver taxiley. Electrician ninka qaabilsan korontada. Construction worker ninka dhismada qaabilsan amba dhismada ka shaqeeyo. Plumber qofka tubooyinka sameeyo. Engineer qofka dhismada qaabkii loo dhis lahay sawiro. Mechanic ninka gaariga haleysan sameeyo. Pilot qofka diyaaradda wado. Flight attendant waa dadka diyaaradda markaa saaran tahay cuntada dadka u geeyo. Travel agent
travel agent dadka safar dadka caawiyo xagga passport hadday noqoto visa hadday noqoto travel agent tour guide markaa wadanku cusub tahay qofka ku hagi lahay ayaa la dhahaa tour guide amba meelaha ku tuso ilaan wadanka waa ku cusub tahay tour guide journalist waxaa la yiraa wariye simple questions su'aalo sahlan do you have an appointment balan ma leedahay appointment waxaa laga wadaa balan no could I make one for today please no could I make one for today please maya laakiinse maanta balan ma samaysan karaa fadlan does he work with you asiga adi moo kula shaqeeyaa yes he works in my office ha wuxuu ka shaqeeyaa xafiiskayga Sarah hello Abdul hi Sarah who is this Sarah qofkan yawaay Sarah this is my friend tan waa saaxiibtay Abdul what is her name waa maxay magaceed Sarah her name is Chu she is from China magaceed waa Chu waxay ka timid China Abdul how old is she meeqa sano ayay jirtaa Sarah she is 24 years old waxay jirtaa 24 sano Abdul is she married ma la qabaa Sarah no she isn't married she's single maya lama qabo waa single Abdul is she a teacher or a student macalmad miyaa mise arday Sarah she is a teacher macalmad waaye Abdul see you guys later hay mar kalan is arkaynaa Sarah goodbye mac salaamo father ama dad mother mom labadan haddii la isku daro waxay noqonaysaa parents husband wife husband waxaa laga wadaa ragga oo xaas qabaan wife-na xaaska together haddii la isku daro comment kusoo qoro fadlan brother sister brother waxaa laga wadaa walaal sister abaayo haddii labadan la isku daro waxay noqonaysaa siblings son daughter son waxaa la dhahaa wiilka daughter gabarta together haddii la isku daro waxay noqonaysaa children ama kids grandfather grandpa iyo grandfather waa hal sidoo kale grandmother iyo grandma grandfather waxaa laga wadaa awoowe grandmother ayeeyo haddii la isku daro grandparents tanoo kale lamid taha laakiinse grand ayaa lagu daray parents grandparents walaalaha waxaa lagu wacaa siblings caruurtana children wife iyo husband wixii la dhaho
commentiga kusoo qora fadlan. Bill is Cindy's husband. Bill waa Cindy ninkeeda. Cindy is Mary's mother. Cindy waa Mary hooyadeed. John and Mary are Bill's children. John iyo Mary waa Bill caruurtiisa. John and Mary are siblings. John iyo Mary waa walaalo. Who is Bill's wife? Bill xaaskiisa iyo waaye. Cindy waaye. Who is John's sister? John walaashiis iyo waaye. Waa Mary. Who is Cindy's daughter? Cindy gabarteeda iyo waaye. Mary waaye. Who is Mary's mother? Mary hooyadeed iyo waaye. Waa Cindy. Who are John and Mary's parents? John iyo Mary waalidiintooda iyo waaye. Waalidiintooda waa Bill iyo Cindy.